maamulka cisbitaalka kalkaale magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegay inay soo kordhiyeen adeegyo caafimaad oo dalka dibadiisa loo aadi jiray iyagoo ay yimaadeen dhakhaatiir ajnabi ah oo khibrad dheeraad u leh cudurradaasi. Maxamed Cali Weheliye ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray magaalada Muqdisho. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya dhaqaatiir iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay Dr. Barafan oo u dhashay dalka Hindiya isla markaana ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca jilbaha iyo kala goosyada lafaha. xanuunadaasi ayaa loo aadi jiray dalka dibadiisa waxaana dhakhtarkaasi daaweynaya uu ka howlgali doonaa cisbitaalka kalkaal ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha cisbitaalka kalkaal Dr. Galad Shiil Ducaale iyo Cabdullaahi Cabdikariin Jawhar oo agaasimaha guud ee cisbitaalkaasi ayaa goobta ka hadlay. lagu sameeyo qalliin knee replacement and hip replacement in lagu sameeyo markii ugu horeysay waddanka Soomaaliya. aad baan u faraxsanahay marka waxaan rabaa inaan halkan ka horta ugu mahad celiyo martishaafka ka soo qayb galay dhammaan oo ugu horeeyaan madaxda wasaaradda caafimaadka ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Maxamed Saciid iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan qalliinadan waxaa loo aadi jiray Hindiya iyo Malaysia iyo wadamo badan. hadda waxaan u keenay waddanka inaan u fududeyno dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan qalliinkan dhakhaatiirta sameynaysa waxay ka timid Hindiya, Soomaaliya iyo Syria dhakhaatiir qalliinaha hadda waxaan sameynay 7 qalliin dad qalliinada loo sameeyay way soconayaan hadda. ugu dambeyntii Dr. Barafan oo dhakhtarka ku takhasusay daaweynta jilbaha iyo kala goosyada jirka oo ka howl bilaabay cisbitaalka kalkaal iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa goobta ka hadlay. I feel happy and proud that Kalkal Hospital has done a wonderful job of trying to bring joint replacements to Somalia, and today it is a reality. Okay. So we have done very difficult knees and hips here. We have a lot of orthopedic problems in Somalia that I've seen. I feel overwhelmed. I think there is a lot more to do. dhakhaatiirta ajnabiga ee ka socda walaalaheena waddanka Syria iyo India run ahaantii sharaf ay noo tahay inaan waddankeena ku soo dhaweyno. tani waxay la tusinaysaa in dawladda ay jirto waddankana uu nabad noqonayo ilaahay ku yiraahdo. waxaan rabnaa idinkoo maxaa khibradiina ardadeena Soomaaliyeed idinka baratay oo awood u helay in bukaanadooda ay caafimaadayaan ayaan mar dhow rajaynaynaa ilaahay ku yiraahdo. wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dawladda Soomaaliyeed waxay garab taagan tahay sidii loo horumarin lahaa caafimaadka ninka muwaadinka iyo gabadha muwaadinada Soomaaliyeed ee ay level kale aan u gudubno oo ah in aan waddanka dhisno. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.